السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال هذا مقال كان لواد أو إكسل أين وهذليني فول كورس بيناس قيبتي سيلوات 10 كان وكسبسين هاي ونقصو قادم دونا سيدا لوجو إكسل سيلاميدا وحين كوارك دونا مقال كان مركات كش إكسل وحد أرك دونتا وحلي رادو بين وحلو استعماله بين وحد أرك دونتا أن بين asagana wixii loo isticmaalo ayaan ku arki doonaa muuqaalkan qaybaha kalena waxaan ku arki doonaa sida loo isticmaalo columns rows iyo cells si aad u gasho Excel Windows sidekiisa waxaad ku qortaa ex waxaad ku dhufataa Excelka meesha kaaga soo muuqdo ku dhufo oo furmo Excelkan waxaynu ku arki doonaa Excel oo laba qayb u kala dhigay qayb wuxuu dhahay waa recent files qayb kalena waa templates iyo worksheet oo blanka ay rabaan ku qoran qaybtan fileska adigu ku jiro ayuu meeshan ku soo saaray halkan waxa ka muuqda waxa la yiraahdo binkaas wuxuu muujinayaa fileska ku saaran meesha ugu sareeya haddaad taada unbin awaad butonkaas yar ku dhufato hoos u jeedo hoos ayuu ka aaday wuxuuna aaday hadda qaybtan waadi asagana wuxuu u kala qaybiyay wax la yiraahdo today older labadaas qayb ayuu kala bixiyay fileska hadii badan yihiin oo aadan bin aad tiraadin waxa laga yaabaa fileskaada inuu ka lumo oo aad weyso wixii muhiim ah waxa ka caawinaya bin si aad fileska aad rabto kor inaad keensato waxaa dhihi bin kor ayuu aadaa qaybtan kale waxaan ku haysanaa waxa la yiraahdo blank workbook waa qaybta aan ku arki doono muuqaalkan halka kale waxaad ku haysataa templates ku diyaarsan haddaad rabto personal monthly budget haddaad waxaan aysan ku qancin waa qayb waxaa jirta online templates aad ka raadin karto tusaale waxaad shan educational templates meeshan ayuu ku soo daadan doonaa wixii alla waxaad doonto meeshaas ay qoray daadan ka arkin meeshan laakiin waxaan ku bilaabi doonaa muuqaalkan blank workbook asaga ku dhufo markuu ku furmo waxaad arki doontaa Excel 2016 iyo sidoo u yahay waxyaalaha ugu muhiimsan ay rabno inaan fahanno ayaa ah columns rows iyo cells hadda meesha aan taaganahay waxaan arkaynaa in meeshan ay tahay wax la yiraahdo cell meesha aan taaganahay wuxuu ku leeyahay calaamad yar calaamadaas ayaa muujinaya in meeshan aad taagantahay uu yahay cell A1 meeshaas ayuu kugu qorayaa in A1 aad taagantahay haddaa ka qaado meelahan kale aad tagto waxaa arkaysa inuu isbedelayo uu ku leeyahay B1 oo A1 ka tagtay B tagtay meelaha imaato wuxuu ku leeyahay waxaa joogtaa B3 B waa ku calaami saddexna waa ku calaami wuxuu ku soo qaatay rowska iyo columnska oo kana B ah misalay iyo rowska oo misalayo numberkan 3 waxyaalaha ugu muhiimsan in fahanto waxa weeyaan columns waa qaybtan aan arkayno waxa la yiraahdaa columnska waa qaybtan saan u jeefto waxayna ku aadan tahay qaybtan la yiraahdo ABC-da ah eeda B-dana waa column B C waa column C D waa column D saas ayuu soconaya qaybtan kalena waxa weeyaan rows qaybtan saan u jeefto lambarada ku toosan rowska kala waa kay kan ku sii xiga waa kay qaybtaasna waa rows markii aan muuska qaadno oo meel kale aan saarno waxaan arkaynaa in meeshaas F5 uu ku soo qoray wuxuu ku leeyahay cellka taaganta waa F5 wuxuu ku dhahay waa F-ta meesha aad taaganta oo calaamadaas muujinaysa iyo 5-ta meeshaas muujinaysa oo rowska midaysa waa F5 marka aad dhigto formulas iyo meelaas aad tagto waxaa muhiim ah inaad fahanto cellska iyo rowska si aad ula socoto muuqaaladana xiga aan uga hadlayno Excel full course qaybihiisa kale subscribe Muqdisho ICT wixii aad aragtay qabtana nagu reeb qaybta commentiga